mawjadiisa helo haddaad walaalow halkan ku aragtay qof waxa uu ka hadlayay ama ka shaqaynaya ama faraha ku hayay ama magaceega sitay si fiican u qabtay waa qof mawjadiisii helay marka ha isbarbar dhigin boggaaga koobaad ha la barbar dhigin bogga boqolaad ee qof kale oo halkan soo joogay qof walba oo halkaad socotaa waa halkii kugu fiicnayd haddaad inaad ka badiso rabtana waad storygan aan inagu soo gabagabaynaya nin xaafis loo odhan jiray baa jira sheekadani waa sheeko caana dadka akhriska jecel ee buugta ku dhex jira waa sheeko caanay maqlaan dadkeenna badankiisu inaanay maqal baa laga yaabaa laakiin anigaa joogoo sheegaya xaafis baa la odhan jiray xaafis beer buu iska lahaa adhi iyo geel buu lahaa webi yar baa u dhex mari jiray beertiisa nimcatulfushuuq buu ku jiray xaaskiisa iyo ciyaalkiisu nimcay la joogeen waa faraxsanaayeen they were all happy isagoo faraxsan ilayn waa labuun dadku qof iska jiidha ah qof isagu iska jiidha iyo qof laga jiidho ka jiidhaa ninkii u yimide intii yaraydee uu haystay iyo noloshu sidaa iskugu beegbeegnayd ayuu intii buu qawad u geliyey wuxuu ku yidhi hee mayntan maxaa sii ciyaal yar iyo xoolo yaroo meel lagu dhaqdiyo beel yar baad dul fadhidaa waar khayrkaa uu kaa tegey khayrkaa halkaasuu maro waxaasuu qabsado waxa loo tiriyey wax allo waxa title iyo magac insaanku janto hebel PhD buu sameeyey hebel dhaqaaluu sameeyey hebel waa caan hebelkii kale waa sidan qof kastoo wax kastoon jecelnahay in laynoogu yeedhaa loo tilmaamay intii wuxuu ku furay daaqadihii walwalka iyo daaqadihii walbahaarka xaafis waxa galay fikir wuxuu ka fikiray waxa aanu haysan wuxuu iloobay wuxuu haystay tusaaluu kaga tegay ninkii maalintaa u warramay wuxuu ku yidhi haddii aad hesho qurub yar oo dhaymana adduunyada waa lagu kala tago rag baa joogay iyo dumare qurub yar haddaad hesho magaaladaadaad yeelanaysaa haddaad feedhkaaga dhayman leeg heshana waddankaagaad yeelanaysaa harooda wax isku falo oo dhulka maaragtay u raadcatag dhayman soo raadi xaafis fikir dhayman baa galay wuxuu baadi goobay habeenkiiba hurdadii buu ladi waayey hurdadii baa u dhadhami weyday islaantiisii baa u dhadhami weyday waxa u dhadhami weyday ciyaalkiisii beertiisii webigii xoolihii nimcadii uu joogay waa u dhadhami weyday xaafis fikirkii uu ku sii socdo wuxuu baadi goobay dheeman value kastoo uu arkayey waxay isku beddeleen value ay dheeman leedahay baadi goob buu galay dheeman buu raadinayaa waddankiisii buu ku wareegay wuu ka waayey wuxuu iibiyey beertiisii si uu safar u galo dheeman uu ku raadinayo xoolihiisii buu iibiyey si uu safar dheeman uu ku raadinayo u galay siduu u socday wuxuu soo istaagay waxba la'aan uu xoolo beelay uu xilo beelay reerkiisii wuxuu dejiyey meel aya oo xoolo iyo waxba aanu ku dhaqan karin wuxuu soo istaagay xoolo la'aan ugu dambayn waddanka Spain la yidhaaho magaalada Barcelona ayuu gaadhay isagoo daalay morally dhintay dhaqaal ahaan baaba'ay aragtidii uu ka lahaa nolosha iyo wixii uu raadinayay uu qiimeynayna aan weli hayn finally wuxuu isku tuuray webi Barcelona ku yaala sheekadiisuna halkaasay ku dhammaatay ku soo noqo gurigiisii ninkii gurigiisa ugu yimid ee walbahaarka geliyey ee daaqadaha walwalkii walaaca ku furay ee u sheegay wax aanu haysan ee aan u sheegin wuxuu haysta qiimaheegu maalin maalmaha ka mid uu gurigii xaafis ka guuray tagay hayga lumine xaafis guriga wuu gado qof kalaa markaa hadda degan qofkii kale deganaa buu ku beegmay qofkii buu u tegey wuxuu arkay ninkii guriga deganaa oo miiska gurigiisa ay u dul taallo dhagax yar oo aad u iftiimayo dhalaalaya markaasuu intuu soo kurkursaday ku yidhi waar walaal xaafis mee walaal xaafis halkan ma degana oo waxaasi maxay ahayd meesha ka dul iftiimaya waxee ma waxan way soo qabteen ninkan guriga ka gatay xaafis ma yaqaano waxan uu haysto he doesn't know wuxuu arkay qulqulka dhex maraa beertiisa dhagax yar oo iftiimayo dhex yaallo qurux ahaan buu soo qaato u dhigtay miiska dushiisa waxa ninkii way isla eegeen wixii bay eegeen suuqay geeyeen waxay noqotay dheema waxa la weydiiyey ninkii xaafis gurigiisa gatay halkeed ka keentay meeshii buu sheegay waxay noqotay in webigii yaraa ee dhex maray qulqulkii yaraa ee dhex marayay beertiisa in dib loogu noqdo la soo eego beerta uu xaafis ka tagay ee uu ka dhintay ee uu gaday waxa la ogaaday inay siday u dhan tahay ku fadhido dheeman aan qiyaasteeda lahayn
walaal qof kale qiimihiisa aragtidiisa waad ku fiican tahay aniguna waan ku fiicanahay aad baan ugu fiicanahay inaan qof kale quruxdiisa qiimihiisa qaayihiisa dhaqaalihiisa haybadiisa sharafta inaan aragno qof kale siduu u wanaagsan yahay waan ku fiicanahay laakiin marar badan waan sagsaagnaa inaad intaada adigu aragto marar badan waxaad maqasheen maaragtay cawsku dhinaca kaluu jiraa the grass is greener on the other side waa been cawsku dooga wuxuu ku leeyahay halkaad ka waraabiso haddaad lugahaaga ka waraabisana lugahaagu cawsku yaallaa haddaad halka qofkaasi joogo ka waraabisood halkaa filashada dhigtana halkaasuu joogaa waxaad aamintaa dhaba waxaan intaa idinku sheegaya walaalayaal inaan idinku gubaabiyoon isxasuusino lagaama tegin waqti kaama tegin halkaad socotaa waa sax halkaad socotaa waa okay yaanu ku niyad jebin qof laga yaabo inuu tallaabooyinkaa horreeyey yaanu ku niyad jebine u male inuu qofkaasi tallaabooyinkaa horreeyey waan ku celinayaaye boggaaga koobaad adoo buug 100 bayj akhriya iyo boggiisa koobaad adoo jooga ha isbarbar dhiginoo ha ka qiyaas qaadan qof buuggaa dhammeeyey oo boggii boqlaad maraya laba dareen baad kala joogtaan laba cidhif baad kala joogtaan it's a matter of time waana xilli unbaa idin dhexeeya marka waxaan rabaa qof kastoo halkaad joogto inaad qiimo leedahay ku dareen qof kastoo halkaad joogto inaad wax qaban karto ku dareen qof kaloo wanaagsan haddaad aragto u sheeg naftaada that you will get there someday maalin maalmahan ka mida inaad tegayso shaqadeedii inaad hayso ha niyad jebin ha quusan ha is odhanin waa lagaa fiican lagaama tegin anigaa is odhan jiray waa lagaa tagay because waxaan ku shaqeeya hadda waxaan ahayn baan jaamacadda ka bartay 10 sano igu qaadatay in aan hadda sidaa idinla soo hor istaagoon idiin sheekeeyo anigoo faraxsan it took me 10 years because qof walba wuxuu ii sheegay in qofka kale ee waxa kale ee fiican ee bulshadu jecleed qabanaya uu iga fiican yahay and I fall for that taasaan u dhacoon aaminay meelna imay geyn waxa meeli geeyay markaan aaminay in qof kasta mawjadiisa inuu helaa ay nolosha farxadeeda ku xidhan tahay mawjadaada raadi waqti badan gal inaad soo hesho oo mawjadaada hesho waxaan aaminsanahay markaasaad dareemi inaad nolosha bulshadaada wax ku darayso markaasaad dareemi inaad noloshii adigu aad rabteen nooshahay markaasaad qiimaha aad dareemi doontaa aadna lagu dareemi doonaa intaa waxaa iga ahayd afeef ah war talentiska iyo hibooyinka iyo kartida iyo caqliga iyo xikmadda halkan laga soo bandhigay yaanay ku niyad jebine qof walba mawjadiisii buu haystaaye taadii soo raadi ilaa aad seshana nasasha kuma taalo intaa kadib waxaan soo dhawaynayaa walaalihii aan jeclaa ee sessionka igala qayb qaadan lahaa ee aan u daadihinayay barnaamijkay su'aalaha ku weydiinayay waxaa ka mid a walaalaha macallinkaygii dugsiga sare ee Fuaad oo isagana aabahay uu macallin u ahaa maalmaha ka mid uu weydiiyay maxamed maxaa rabtaa inaad noqoto macallin adigoo kale aan rabaa inaan noqdaan ku yidhi markaasuu igu qoslo yidhi waar ka joog aniguba macallinimadan uma soo socon dariiqan sii marayay la tahay ka daayo meel kala qabso waan ka soo fikirayaa baan ku yidhi macallin waan ka fogaaday ila soo dhaweeya macallin baa soo dhaweey